حائن الدبولي محانو شيادين وقلك رارعنينا دول كان هدي او بربرو هدانو ماليه اين جوغني قفل بوكشقين يلبنايو يا مسؤول كأه ورمصدن سنة كب إنان كنا قلنا هاي مكالدونا واتقرنيسان دل كان ميشا لغا سو قادي واتقرنيسان قرن كان ميشا لغا سو قادي madaxdii hore way soo dhiseen qof walba oo madax noqdaa meel buu dalkan keenay maanta meel qurux badan buu joogaa sidee inagoo malaayiin ah mas'uuliyiin ah cuqaal ah culimo iyo isugu jira maaragtay dad wax bartay shayaadiin dal shisheeye hoos jooga qaran kale harsanaya ay u burburin karaan qarankeena say u burburin karaan taada kale qarankan uu ka weyn yahay wax hadal lagu burburiyo waa ka weyn yahay Soomaa waa maxay ruuxbigii argagax dadkeenu ku nool yahay xagga laga soo galay xeeraa la baneeyay waa la soo galay xeero kala la baneeyay waa la soo galay xagga laga soo galay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam la yahillu limuslimin an yurawwi'a akhaah حلال أمها ومن بنانا نن مسلم إنه أرججحيه أما وكوابور ولالكي أرججح أركيس إنه قلي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم إلهي وجعلي هاي إنسان قف كأور ولالكي فرحت قليا وحانو فرحت قلينا قرح ذا أنو أتاقنا هاي أنو قيلينا ودفرينا oo aanu qabowga u taaganahay qorraxda u taaganahay boorku noogu dhacaya u soo jeedno u gaajoonayno u oomayno waa maxay aan jiifkii uga tagnay qoriga aan ula taaganahay waa maxay hal ruux ma in farxad la geliya maya ee waa malaayiin dad ah uurkooda in farxad la geliyo weeyaan waa kuwa malaayiinka waa hooyooyinkeen waa waalidiintii aabooyin weeyaan ووالالو ودشيني وحاسسكيني أولاديني أوركينو لابتينو أي كقبو سنيسي عدانو مسؤولك كاهين ويان صحابتي كود إذا لينا ليهي ايك تاريخ رود الدب هدانو أفيرينو ما آني أهين dad u shaqaynaya calooshooda dad u shaqaynaya nafsadooda dad u shaqaynaya beel yar iyo qabiil yar bal way ka weynaayeen mas'uuliyadoodu aad bay uga weyneed intaa maxaa yeelay qofka muslimka ah uu ka weyn yahay inuu calooshiisa fiiriyo uu ka weyn yahay inuu nafsadiisa fiiriyo uu ka weyn yahay beel yar iyo qabiil yar iyo laan yar inuu fiiriyo waa ka weyn yahay maxaa yeelay xilkiisu wuxuu gaarayaa ummadda oo dhan ayuu gaarayaa saxaabada sidoo kale idaylkood waxay hurayaan xoolahoodii nafsadoodii dhiigoodii maalkoodii xooggoodii cilmigoodii iyo waqtigoodii bay bixinayaan way bixinayaan ma aha inay wax sugayaan waxay u bixinayaan waa maxay ay u daalayaan u gaajoonayaan u oomayaan u maaragtay hurdadii uga tagayaan u soo jeedaan waa dadka kale walaalahood inay raaxaystaan inaad hooyo noqotaa laga doonaya hooyada way daashaa ubadkeeda harsada hooyadu way gaajootaa ubadkeeda dherga way oontaa ubadkeeda haraad baxa way daashaa ubadkeeda nasta hooyada daa'iman wanaageedo dhan waxay u hurtaa ubadkeeda haddaad tihiin ciidamada qalabka sida xooga dalka Soomaaliyeed waxaad tihiin wadankan aad u tihiin aabba maahe hooyo ayaad u tihiin hooyaad u tihiin wadankan waadna mudan tihiin inaad maaragtay hooyo u noqotaan حبيبك صلوات الله وسلامه عليه وحد قرنيسان نولوشيسي ودن قاجي درق ما بس هو مرينه وحو أهري وقرن كيس أيو أهري دد كيس أيو أهري دفاع دد كيس دل كيس أيو أهري مالي مالمها كميدة وحد قرنيسان صلى الله عليه وسلم قريسو كصوبحي إساقو آدو قاجوناي luqadan casriga ah hadii aan ku hadlana waxa waaye accountiga ayaana waxba uga soo dhicin accountiga waa maran yahay Aisha furaysa accountiga waxbay ka waayeysaa accountiga rasuulku aad garanaysaan
ilaahay baa u soo dejinaayey xaggaasuu ka imanayey insaankana daa'iman taasuu ku xisaabtamaa accountiga wax ugu soo dhici waayey reerku waa gaajaysan yahay maanta dabka uma shidna habeen saq dhexe ayuu soo kacayaa sala allahu calayhi wasalam isagoo beerka haysta bannaanka markuu yimid ayaa halkaasoo kale wuxuu ka arkayaa abaabakar radia allahu canhu wa ardaah khaliifka uga dambayn doono xukunka islaamka abaabakar wuxuu leeyahay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam qorax uma soo bixin umana dhicin cid ka fadli badan abaabakar bacda الrusul rususha iyo nebiyaalka kadib ninka ugu fadliga badan buu ahaa markuu soo baxo rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam ayaa wuxuu arkayaa abaabakar oo halkaa fadhiya oo foorara dhinaciisuu fiirinayaa cumar ibn الkhطaab amiiru اlmu'miniin radia allahu canhu ardah ayaa isagana ag fadhiya oo fooraro hoos u dugan waa habeen saq dhexe weeyaan wuu la yaabay wuxuu yidhi maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saaca war waktigan saacaddan maxaa guryihiina idinka soo bixiyey maxay yidhaaheen maxaad filaysaan maxay samaynaayeen waxay yidhaahdeen aljuucu yaa rasuula allah gaajaana soo bixisay accountigii waxba kuma soo dhicin maanta dabka nooma shidna waa naga dansan yahay aad baan u gaajaysannahay ciyaalkii waa dhex joogi weynay iyagoo ooyaya waa dhegaysan weynay bannaankaanu u soo baxnay gaajaana soo bixisay wallaahi wuxuu dhahayaa wuxuu leeyahay wa ana waladii nafsii biyadih waxaa la akhrajanii aladii akhrajakumaa wallaahi anna waxaa isoo saaray waxaa idinka idin soo saaray laa ilaaha ila allah waa khayru khalqi illaah oo aan accounti u soo dhicin waa khulafaa raashidiinkii oo aan accounti u soo dhicin ayaa u soo baxay gaajo laakiin ma mudaaharaad bay samaynayaan xilkii iyo hawshii ummadda ay u hayeen miyay daayeen ma maqasheen rasuulka hawshiisii ka tegey ma maqasheen abaabakar baa hawshiisii ka tegey ma maqasheen ilaahay baa idinku dhaariyey qofku waa inuu ogaadaa xilka uu hayo dalkiisa xilka uu hayo ummaddiisa ummaddan ciyaar maaha malaayiin ruux in lagu ciyaaro ammaankoodii ma aha anas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha saa'ilun kula raacin cama istarcaa axafida dalika am dayaca ilaahay wallaahi wuu weydiinayaa qof walba oo mas-uul ah hawsha uu hayay waa la weydiinayaa in uu dayacay iyo inuu ka soo baxay war ilaahay hortii maxaad u sheegaysaan hadhow markaad xilalkiinii ka tagtaa ummaddan muslimiinta ah dadkan masaakiinta ah dhibbanaa muddo dalkan haray ummadihii ka haray xilkaad u hayseen markaad meelihiinii bannaysaan oo aad xaaba adduunya habeen aad gaajooteen aad uga tagtaan maxaad tihiin ma insaan baa tihiin mise xayawaanaad tihiin ii sheega caqliga waa inuu shaqeeyaa waad ka weyn tihiin ka sharaf badan tihiin cizigiinii allaha kordhiyo waad ka weyn tihiin ka cizi badan tihiin inaad waxyaabo yar in aad u hadashaan ilaahay baan ku dhaariyey $100 baa maanta loo calacalayaa oo aan la diidin laakiin soo daahay registration baa la samaynayaa waa nidaam baa la samaynayaa magacyadii iyo wixii oo ay dawladdu doonayso inay ciidamadeeda ay ku habayso oo ay nidaam ugu samayso diiwaankana cumar baa bilaabay iyo in wax la register gareeyo marka waana dantiina iyo danta ummadda weeyaan iyo danta dalka ciidan aanan register garaysnayn waa maxay ciidan aan tiro koobnayn waa maxay ciidan aan caddadoodii la garanaynin waa maxay ciidan aan meelo lagu ogeyn waa maxay ma fawdaynu ku noolaanaynaa sharciga aanu ku dhaqanno ma sharcigii duurka ma xoolihii xayawaanaynu nahay insaan baynu nahay nidaam baynu u baahan nahay kala dambayn baynu u baahan nahay diinteennaa kala dambayn leh diinteennaa saxaabada ideelkood waa kala dambeeyeen kala dambayntaasaan adduunku lagu hormaraa dadkan soo qaylinaya shayaadiinta meelaha ka qaylinaya social mediaha ah dalka ay ku nool yihiin bal idinku waraysta idinkuwa qaar baa ka yimid bal ma nidaam daraa lagu nool yahay
ma jiraa ciidan qori iska wato aan register garaysnayn meel lagu ogeyn magac lahayn iska socda miyaa jira ilaahay baa ku dhaariye maxaa la yiraahdaa ka isaga ah ya shufta la yiraahdaa shufto ya waa gaangis waa mooriyaan in ummadda laga qabtaa loo baahan yahay waxay ila tahay waxa laga shaqaynayaa ee ciidamadu ay ka shaqaynayaan dawladdu ka shaqaynayso waa in ciidankeedii oo culays badan runtii oo udubdhexaadka nabadda waddankan malaayiintan ruux ah in ay nidaamiso intaas waa u malaynayaa wax la isku haysto laakiin idinkana maxaa laydinka rabaa in aad caawisaan ayaa la rabaa teeda kale maanta waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo hal shay nicmo ilaahay idin siiyey oo aad halmaansan tihiin oo wax walba idinkaga qaalisan oo la doonayo keliya idinka maqan tahay shukrigeedii rasuulku waa ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofka waa bariista reerkiisa dhexdii ku waa bariista isagoo nabad qaba oo bed qaba haysta maalinka quudkiisii biyihii iyo kibistii uu cuni lahaa maalinkaa haysta berri ma aha maalinkaa keliya haysta waa caafimaad iyo nabadgelyo oo amni ah iyo maalinkaa galaaska biyaha iyo koobka maaragta koobka shaaha iyo xabadda canjeerada haysta fakaannamaa xiizat lahu dunyaa waaba isagoo adduunka oo dhan ilaahay siiyey boqor waa ninkaa isaga ah war dhalinyaro nabad ma ku soo kacdeen caafimaad ma qabtaan nabad ilaahay ma idinku soo kiciya reerihiina dhexdooda saaka ma quraacateen wax idinka maqan male keliya waxa idinka maqan ilaahay inaad ku shukrisaan waxaan rabaa halkan inaan dhambaal uga diro xukuumadda federaalka ah xukuumadda waxaa looga fadhiyaa dhaarteedii in ay oofiso ilaahay waa ka uu leeyahay waawfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula oofiya ballamaha aad qaadeen wasiirka gaashaandhigga waa kay hor fadhiya taliyaha ciidamadu waa kana generaalka iyo generaaladii kale waa kuwaana mas-uuliyiintii ugu waaweyneedna waa kuwaana inta kale way maqlayaane waxaad mas-uul ka tihiin inaad oofisaan dhaartii aad u qaadeen ciidamada qalabka sida dawladda waa la weydiinayaa haddaan adduunka wax la xisaabtama la helinna wallaahi ilaahay agtii baa lala xisaabtamaa waa ka u dhahaya xabiibka xadiis saxiixaynka ku sugan sala allahu calayhi wasalam micqal ibni yasaar uu werinayo waa ka u dhahayo maa min cabdin waxaan rabaa xukuumadda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ugu weyn yihiin golaha baarlamaanka inay aada ii dhegeystaan maa min cabdin يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة مجرو أدون مجرو إلهي أودي بي رعية إلهي مسؤول كنغي مجرو حل أودي بي أمد هرجوجيي هل أيا أغير إلا ملايين مجرو إلا هدي أجروه oo soo dhimanaya maalinka uu dhimanayo isagoo khiyaanay oo qishay dayacay xilka isaga ah hadduu sidaa noogu yimaado mas-uulka isaga ah isagoo xilkiisii dayacay dhaarihiisii ballamihiisii oofin waayey wuxuu yidhi xarama allahu calayhi aljanna laa ilaaha ila allah ilaahay wuxuu ka xarimayaa waa maxay jannadii buu ka xarimayaa qofka ragga ah ballanta u qaado waa inuu oofiyaa adiga waxa korkaaga ah ha dayicin ha ka noqonin haddii dawladdu ka gaabiso iyadaa mas-uul ka ah wixii ay gaabisay ballanteeda iyadaa la weydiinayaa maalinka qiyaamaha ah laakiin adiga ballanta aad qaaday ha oofin waayin ha burrinin xilka ha ka tegin ha bannaynina xerooyinka haddaad sidaa yeeshaan dawladda aad ka tabanaysaan wax dawladdaas aad maaragtay aad tuhunsan tihiin ayaad la mid noqonaysaan idinkuna isma dhaantaan maxaa la yidhi idfaac bilatii hiya axsan lagama xisaabinaayo tan dawladda adiga waxaa lagaa xisaabinaya waa tan korkaaga ah ma ka soo baxday ilaahayna wuxuu idinkugu gargaarayaa ballamaha inaad ka soo baxdaan ilaahay wuxuu idinkugu gargaarayaa camalkiina inaad ka run sheegtaan ilaahay waxaan ka baryayaa allaha naga yeelo kuwa ballamahoodii oofiya allaha naga yeelo kuwa ballamahoodii oofiya
الله نجيله كوو بلنتي أي أقادن شعب كودا كالصوبحة إلهي أور كان هيسوس فيو إلهي أور كان هيسوس فيو إلهي وحن كبر يا قلبي جينا هلها كيالو قول يدير كده هي نجيله فرق ليه فول مدغال يريه كوو اسكت دوبان الله ينجيله كوو قرن كودا إلى شذا الله ينجيله قرن كودا الدفاع ذا الله ينجيله دت كودا الدين تودا وشقيا الله ينجيله كوو أمد سكان الله ينجيله هذا كله وحسودو رمضان أيا سودو وحن عطسنا يا رمضان كو أن كل علينا يا أنو آموسي مايو أنت عيدا كقلب كسيدو واحتبنا يا آموسي مايو رمضان كإن عيدا ماذا سي قوني لوغا ورقبا نقالين تودا لوغا ورقبا حاسس كودا لوغا ورقبا أولاد دودا لوغا ورقبا عيد دودا إن لوغا ورقبا mana aha iyaga dawladda keliyana ma aha waxaan ka codsanayo bal waxaan ka sii codsanayaa waa maalqabeennada iyo ganacsatada oo runtii hadday isu tagaan ururiyaan xoolahooda ay wax ka gooyaan ay wada deeqi karayso runtii ciidamada intooda kala duwan iyo qaybahooda kala duwan intaasna loo samayn maayo magac aad ku yeelatid بل إلهي درتي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلهي وحوليه قفكي سدا يلا أو خير كشقية صدقها بحية إلهي درتي أبحية رد إلهي سور رادنايا النجا سينينا مال دبانو أجري جنات سينينا راليقا هذا إذا كدر جمايو إن نذكسون نغضن والله جيابا وأكسونا هاي هدنا أنكو ختمه هذا الكيغاد أركيسان يا إن للرجي دونه إن لفسر دونه سياسة لقديك دونه ورانو سياسي ماهي أنو سياسي ماهي منا كان سياسة دا كذيبا كوهشين لا ومال عريري idinku ku heshiiya meelaad ku heshiin laadihiin ha iigu yeerina anigu waxaan jecelahay idaylkiin inaad idinkugu yeero saaxadayda waa waasac waa saaxada dacwada saaxada dhiirigelinta dhisidda nafafka weeyaan siyaasi maahi qabiil maahi anigu waxaan ahay muslim taasaanu ku shaqaynaya ku dhimanaya ilaahay ugu soo saaraya أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.